Soo dhawaada waa Somali News oo ina kala socotaan had waliba wixii ku cusub iyo wax waliba oo ina xiisa geliyo. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Twitter-ka oo ah runtii aalad boqolkiiba 70 ay isticmaalaan dadka caalamka, taas oo hadda noqotay aaladda koowaad ee loogu isticmaalka badan yahay marka laga soo tago Facebook. Sidoo kale waa aaladda inta badan ay isticmaalaan dadka caanka ah, halkaasna ay ku gudbiyaan dhammaan wixii oraah ay leeyihiin. Maanta waxaynu ka hadli doonaa dhowr ciwaano oo ay leeyihiin dad caan ah, taas oo hawada laga saaray iyo waliba sababta iyo waliba sida loo adeegsaday. Dadka ilaa ay hadda hawada ka maqan ciwaanadooda ayaa waxaa ka mid ah Bill Gates oo ah milyaneerka adduunka ugu lacagta badan, sidoo kale Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Barack Obama oo ah ama hore u soo noqday madaxweynaha dalka Mareykanka. Apple sidoo kale waa laga saaray. Michael Bloomberg, Kanye West, Benjamin Netanyahu. Tuugada aqliga wax ku dhacda ee Bitcoin ayaa lacagta loo diray si ay u jabsadaan ciwaano muhiim ah oo Twitter-ka ah. Sidoo kaleeto shirkadda Twitter ayaa qof waliba oo haysta calaamadda verified-ka ee buluugga ah ka joojisay in uu wax ku qoro. Waxaa guud ahaan qasan nidaamka shirkadda oo aad iyo aad isugu dhexyaacsan. Taas ayaa waxaa loo sababeynayaa kadib markii burcadda aqliga wax ku dhacdo lacag aad iyo aad u weyn faraha loo geliyay, taasoo sababtay inay ciwaano caan ah khadka ka saaraan. Sidoo kaleeto warar hoos ayaa waxay sheegayaan in burcad kale ama burcad internet ay weerareen maadaama ay Twitter weydiisteen lacag gaaraysa 2 milyan. Twitter-na ay ka dhagtay maadaama qolada wax internet-ka wax ku dhacdo ballankooda uu ahaa in hal mar lacag ay ka qaataan, maadaama hadda rogaal celinta iyo waliba ku soo noqnoqoshada ay tuugada ku eedeeyeen ama ay u sababeeyeen dhaqaale xoogan oo ka soo gala Twitter shirkadda iska leh, sidaasna ay ku kordhinayaan baadii iyo canshuurtii ay ka qaadi jireen. Waxaa la rajeynayaa in nidaamka iyo waliba kala dambeyntii dib loogu soo celin doono aaladda Twitter-ka, taas oo runtii aad iyo aad muhiim ugu ah caalamka. Siyaasiyiinta, ciyaartooyda iyo dadka caanka ahba ay boqolkiiba 100 ay isticmaalaan.